haldoorka isugu jira wasiiradii hore oo dawladda Puntland waliba aniga wasiiradeedii ahaa wasiir Farxiyo iyo wasiir Seynab waliba Farxiyo ogaada ubixi kacaankan ku wada jirnaa aniga iyo Farxiyo si gooniyaan u nahay walaal iyo saaxiib walaashay Aamina Burco oo long time isugu kaydameysay baan hadda arkay ana mar hore arag Aamina aragaagu waa abshir waa kugu faraxsanahay iyo dhamaan gabdhaho dhan runtii dadka islaamka wuxuu dhahaa qofkii ay saddex qof isaga marqaanti furto waxa uu yahay buu yahay Luul Maxamed Warsame waxa ay tahay waa waxaan la qarin karin waana wax Ilaahay ka dhigay Luul Maxamed Warsame maanta caasimadda Puntland jidadka la dhisay ogaada Luul Maxamed Warsame qaybtii ugu weyneyd bay ka tahay guddiga horumarinta degmada Garowe oo lagu bilaabo 11 qof aniga iyada 2 qof ku jirnay wali habeen wallaana wax ugu soo qareebin kaalintayda aniga waa luus gareey laakiin Luul habeen kama harin si kalena uma luus gareeyne de marba dhinac baa laga hayaa dhinac kale hawsha ka hayay marnaba ifraax baan la hadlay waxaan ku yiri ifraaxay hanaga dhamayn gabar kasta oo halka fadhida caawo waxay rabtaa Luul si fiiha ay maalinka aragtay inay sheegto waxaan rabaa gabdhaha kale inaan u daayo Luul wanaageeda iyo karaamadeeda iyo sharafteeda aniga wallahi Ilaahay magaciisa inay igu tahay haddaan wadnahayga qaybin karo Luul iyo gabdha lamida runtii meel dheer ba igaga yaalaan waana dareemayaa gabdha badan oo reer Puntland oo halka fadhiya baan haddaan siin karo xubnahayga qayb kamid aan siin lahaa wanaagood iyo sharaftooda oo Luul u horeyso abaayo Luulay wax ku farimayno laakiin waxaan ku leenahay Allah kugu guuleeyo xilka lagu magacaabay waxaan daba dhigayaa oo Faadumo Diiriye aan la qabaa xilalku waa inagu yarihiin noo qareen waxaan rabnaa dhowr iyo 20 sano oo Puntland dhisan tahay gabdhuhu waxay ka ahaayeen asaas iyo buddhigayaal ilaa maantana way ka yihiin kalmada kale Luulay aan ku farayaa waxay tahay gabdhaha u noqo bridge yaan gabari gabar wax ka taban yaan gabari gabar ka harin yaan gabari gabar booskeeda kala banayn qof kasta oo Ilaahay abuuray oo karaamaysan oo sharfan oo bini'aadana karaamu leeyahay inaga wada jirkeena iyo wada joogisteenuna karaamay leedahay xilku waa wax lana fuulo lagana dego taliyaha sare ee madaxweynaha Puntland Luul Maxamed Warsame gudoomiye ku-xigeenka bangiga Aniiso agaasimayaasha wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda haweenka gabdhaha ganacsatada gabdhaha madaxtooyada ka socda gabdhaha diyaasbarada gabdhaha doorka ah gabdhaha saxaafadda oo xagga dambe fadhiya hidiya dhaqanka saxaafadda waxay inoo tahay habeen taariikhi ah oo farxad badan oo dadkii Puntland dhamaantood soo dhisay iyo kuwii dhalinyarada u ahaaba ay halkan kelmado muhiim ka jeediyeen runtii aad iyo aad baan anigu intii aan Puntland joogay gaar ahaan Garowe ku soo biiray waxaan u qirayaa Luul inta laga sheegay anigu Garowe kuma dhalan kuma korin laakiin intii aan joogay xil iyadoon haynin oo waa qofka kaliya runtii iyadoon xil haynin ay danta guud ee Puntland meel kasta ay u tahay ama nabadgelyo ahaato ama haweenka haldoorka ah ahaato oo taageero loo sameeyo ama ha noqoto dayarta ama ha noqoto khilaaf soo kala dhexgala gabdhaha haldoorka ah Luul waxay ahayd haldoorka Puntland ee inta kaga shaqeynaysay si horumar ah oo waxtar leh oo aan la soo koobi karin Luul waxaan ku leeyahay anu waxaan la qabaa Luul jagadan runtii jaga ka sareysay istaashay laakiin wadiiqada weyn bay kugu ridaa waxaan rajaynayaa wax badan baa lagugu diiday adoo si toos u doontay maanta inaad tan jaga sare madaxweyne tiri ku xigeenka shaqadu waa 4.5 ta madaxweynaha raadsanaysa tan waa taayadii insha Allah intaasina way iga kaftan Luul insha Allah ilaahay waxaan kaaga baryaynaa guulayso
oo guulayso oo xilka lagu idmaday guulayso baan ku leenahay Allah kugu anfaco Allah ummadda walaalaha kuwii kula shaqeeya Allah kaaga dhigo garbahaaga gabdhaha sharafta badan oo Zainab Ugaas iyo ay ugu horeeyaan Farxiyo Bilib oo ayaguna gabdhihii hal doorka Puntland oo caaw kulli qiray waxa hal doorkaaga aatay waxaan rajaynayaa Allah subhanahu wa ta'ala kuwii garbahaaga istaaga inay noqdaan dhammaantiin wasiiradda wasaaradda haweenka iyo madaxweynaha Thank you.